ayaa qurux badan kelmad baa khatar ah oo mar waliba lagu soo celcelinayaa oo shirki iyo dembi weyn inagu ah taasoo ah waxa weeye mataqaanay dadkan dunida ayaga maamula kelmadaas waa dembi weyn muudka yargal khataray مثلا يدي program كان وذا وجه من ميت كقلوة ما يدهاي codkaaga ay ku soo noqonaya ودنا عاد عطين سو noqonaya guys ما muudka iska gala cod inaad maamulayso waan garanayay horma soo noqonaya program kan wadaayo wayna ka gure ku soco marka waxa weeye horta kelmadaasi in la iska daayaa qurux badan dunida ay maamulaan waa koox dunida maamusha dunida ilaahay oo qura oon baa maamula iyagana ilaahay baa abuuray wax awood ay leeyihiin haba yaraatee ma jirto talabaadna in Soomaalida cabsi loo geliyo oo la yiraahdo waxa weeye mataqaanay waa niman khatara dadkay dilaan dadkay nafta dhaafiyaan dadkay waalaan dadkay waxa weeye mataqaanay adduunka ka saarayaan horta waxa weeye mataqaanay waxaad ogaataan waa khuraafaad waxyaalaha qaarkood la iska dhaadhiciyo waxa weeye mataqaanay in Soomaalida laga dhaadhiciyo waa niman khatara oo waa sida nawaaba intay rabaanba nimankan intaas ku shaqeystaan in dadka la cabsi geliyo in dadka laga dhigo waxa weeye mataqaanay inay iyagu ugu sareeyaan inay dadka dilaan inay adduunka ugu sareeyaan oo ay maamulaan intaas way inta doonay horta kooxdan waa koox jirta waana koox waxa weeye mataqaanay team dhisan waana koox ku heshiiyay inay waxa weeye mataqaanay dadka iyo waxa weeye maalkoogaba ay maamuli karaan oo iyagu iska dhaadhiciyeen waana koox weligoodna soo jiri doonana inta dunida waxa weeye mataqaanay dhamaanayso soo dhawow نعم بلا دمس maya jamaal sug qarda jeex baa ku jirtaa نعم أنا قلت له كفي بالكوس maya waa qarda jeexaysaa sug walaal sug ما waa soo wadaa soo dhameeyo maya dee walaalo hadalkaa rogin eeg waxaad tidhi waxaa la yidhi adduunka dhan way maamulaan adduunka ma rabaan adduunka ma maamulaan walaalo waxaa lagu yidhi eeg hadalka hadda saa adigu u rabto iyo sida ma aragta la yidhaahdo ama sida ay ku shaqaystaan ogow waxa waaye waxay rabaan inay maamulaan iyagaa raba ilaahayna kama dhigayo laakiin in laga digtoonaado iyo sababta ay rabaan inay ku maamulaan iyo waxa ay rabaan inay naga faa'iidaan waa inaad ogaataa walaalo haddaad tiraahdo waa khuraafaad oo dhagaha laga daboolanayo of course waa khuraafaad kuwan maxaa la yidhaahdaa dadka sixra ee dadka kala jeediya ee indhasarcaadiya ee madiideeya ma khuraafaad baa kuwaas sow shirki ma sameeyaan yes kuwani waabay samaynayaan waanay u badheedheen waana cadow adduunka ugu weyn waaye oo calashaan ay leeyihiin annagaa wax walba samaynayna yaa ka weyn ilaahay subxaanahu watacaala qofka ilaahay xadhigiisa haysta qofka ilaahay aamina qofka ficil ku dara qofka aan ummadda ma aragtay khiyaamin ayaa ma aragtay intaasaa ka adag laakiin sideebaa qofkii haddii uu galo jamaalow qofkii hadduu wixii galo oo uu dhiilkii dadkii la galo sideebaa uga soo bixi kartaan waaye marka walaalo intaad kan ka baxdo horta waxaad gashaa arrinka Omar ka hadal walaalo oo waxaad tidhaahdaa arrinkaas walaalo say tahay oo abaar saad u aragto iyo saad wiilkaas Soomaaliyeed ku caawin karto walaalo meesha walaal dhegeyso may fursadii ma badsiin bad afkaad qabato war soo socdaa laakiin kelmadeeda digniinta waxay ahayd oo wax kale ma aha shirki uu jira oo qofku markuu wixii aamino ayuu shirki ku dhacaa tan aan ku sheegayana waxa weeye qofkan waxa weeye sixirka sameynaya deenu waxa weeye aad aaminto tiraado aad ka cabsato taas laftigeega dambi bay kugu tahay inaguna inaynu aaminno iyagu way iska dhaadhiciyeen oo waxay leeyihiin dunida annaga maamulna adiguna haddaad tiraado waa kuwii koox dunida maamusha taasna adiga waxa weeye waxaad u rumaysay hadafkoogii iyo ujeedkoogii ay u socdeen no maanaan dhihin qaar badan ku soo celinayo aan ogaay iyaga maamulo ma aha way rabaan walaalo way rabaan okay ya tabaan ka gudubno tan kale Omar waxa weeye runtii waxa weeye Omar horta waynu u ducaynaynaayo waxa weeye qurbuhuna waa iska dhibadan yahay waxa weeye mataqaanay qofkuna uu fikiri karaayo waxa weeye mataqaanay xaalado kale oo ku furmi karaan anigu ma qabo inuu Omar waxa weeye qolooyinkan ku jiro xidhiidh xataa la yeeshay xataa xidhiidh lama yeelan sida ka muuqata sababtoo ah qof aad waxa weeye ku dhibaataynayo oo aad ka cabanayso oo haddana aad u yeedhanayso si isku qabataa Omar markii wadada taagnaa
wuxuu lahaa waxa way tiri angalkiyow DJ Subeerow iyo badbaadiya haddana waxa dadku ku celcelinayaan qolooyinkana dhibaateynaya eryanaya haddii qolooyinka dhibaateynayaan muxuuba ugu yeedhanayaa waa su-aasha waata oo qofkii daalay qofku dhibaateynaya haddaad u yeedhato oo haddana leeda iyaga way dhibaateynaya waxa weeye mataqaanaa meeshaasi waxa iska cad wax halkaasi inayna waxba ku jirin marka waxaad ogaataan Cumar si kale xaalada kale ugu furmeen waraysi uu waxa weeye dhowr sano ka hor u bixiyayna waxa ku jirtay inuu 4 cisho walna oo waxa weeye mataqaanaa shaki ku dhacay marka qofka bini'aadmigana waxa weeye mataqaanaa markuu heesaha iyo waxa weeye barnaamijyada noocan iyo social media ku dhex jiro mararka qaarkood habla badan baynu aragnay dad badan oo waxa weeye isku ku furmay marka waxaan idin sheegayaa horta qolooyinkani sidan aynu moodayno iyo sidan ay nala tahay haba yaraatee ma jirto anigu waxaan ogaa waxa weeye mataqaanaa wiil aan ilmaadeer nahay oo waxa weeye qolooyinka lagu tumay inuu beri ku biiray inay London ku dileen Canada ka soo cararay waxa weeye London buu yimid airport kale baa lagu toogtay cid shay iyo cid halka waxa weeye mataqaanaa loo raacayna haba yaraatee xataa ka hadalkeygana waxa weeye family-guna aan dabagelin marka waxa weeye way jiraan oo qolooyinkani meelo badan oo ku dili karaan baa jira haddii aad waxa weeye sirtooda aad bixin karto ama ay ku ogaadaan inaad sirtooda bixinayso ama aad ka baxday oo aad waxa weeye ka hortimid marka waxa weeye de Canada buu deganaayo waxa weeye mataqaanaa qurba ah oo waxa weeye uu kaligii deganaa meeshuu doonay kugu dili karaan haddii Ilaahay kugu sababo weyn horta dilkan iyo naftan Ilaahay baa waxa weeye qaadi kara oo waxa weeye mataqaanaa xilliga aad aysan Ilaahay baaso waxa weeye garanaya sabab baa gacanta bini'aadmiga ku imanayaan waxa weeye qof bini'aadmi oo wax ku yeeli kara haba yaraatee ma jirto walaa iyaga walaa cid kale marka laakiin way jiraan qolooyinkan shil gaari kugu dili karaan cuntooyin wax lagu daray kugu dili karaan waxa weeye sabab badan bay kugu dili karaan de mobile isku ilaaliyana haddii iyagu adduunkiiba ay maamulayaan teknolojiyada maamulayaan horta qolooyinkan meelo badan way maamulaan teknolojiyada way ku jiraan ganacsiga way ku jiraan dadka public figures-ka ee waxa weeye wax ku soo kordhinaya waxa weeye mataqaanaa dadku waxa role model-ka way maalgeliyaan nimankani waxa yaqaanaan waxa weeye qofkan maal gasho adiguna wax ka hel waxa weeye isagana waxa weeye famous ka dhig marka ciyaartooyda xataa ku jiraan oo nimankan Messi ka mid ah oo waxa weeye mataqaanaa ragga ay gacanta ku hayaan marka nimankani waxay rabaan iyagu qof ay wax ka faa'iidaan oo millions ay ka sameeyaan kuwaas inta badan waxa weeye mataqaanaa awoodda saaran Soomaali maxaa ku dhex jira Soomaali madiintu ay kala dagaalamaan oo waxa weeye mataqaanaa diinta ay waxa weeye mataqaanaa hor waxa weeye ay ka hor keenaan inay waxa weeye diinta seejiyaan mooyaane de Soomaali maanta bilyan iyo dhowr bilyan haysta haba yaraatee ma jiro fanaani runta marka la isku sheego qof fanaan oo maanta aad leedahay malaayiin buu haysta haba yaraatee ma jirto xataa qaarkood baana guriga dhisan boodalkii guriyaba ku lahayn oo kirooyin gala marka waxa weeye mataqaanaa Soomaalida inta badan haddii diinta ay ka soo galaan ay dhahdaan diinta islaamka waxa way ku adag yihiin laga warrana taasi waa macquul laakiin inta badan waxa weeye mataqaanaa Soomaali isku taxalluujiyaan inagu bana boonboonina inagu bac kale noo gashay inagu waxa weeye waxaan xayisiis ka dhigayna inagana waxa inagu dambiye nimanka sheedan caabudka inaynu waxa weeye dadkeena cabsi ka sii gelinana oo inagu dambi taana laga fogaado taasoo bana waxa weeye ku baaqaya laakiin Cumar haba yaraatee shaqooyinkan iyo ciidan aynu ku tumayno kuma jiro waayo isagu wuxuu ka cawday Soomaali masaad warkii hadalkiisa aad ka aragteen dad buu magacaabay Soomaaliya oo anagu sheegmay laakiin fidiyaas ay ku jiraan oo waxa weeye qaarkood siyaasiyiin qaarkood fanaaniyiin dad Soomaaliya ka cawday ee qolooyinka kama caban baa inuu sheegaynaa leenahay qolooyinkana dilay iyo qolooyinkana daba socda isla qolooyinkana nimanka uu ka cawday ee Soomaalidaana haba yaraatee wallahi waxa weeye mataqaanaa nimankaasi waxa ay qolooyinka ay shaqo ku leeyihiin haba yaraatee ma jirto marka arrimahana aynu isku laaqayna iyo arrimahana ay waxa weeye mataqaanaa tunku inaga galay waxa weeye haba yaraatee waxa weeye meesha kuma jiraan qolooyinkana sida waxa weeye aad ka dhigayno u boonboonayna in laga daayay inuu qurux badan dad muslimiin nahay dad diin haysta oo islaam ku dhashay baynu nahay ilaahay aaminsan baynu nahay inaynu ilaahay aaminaa qurux badan khatartoodana inaynu ka fogaano ayaa qurux badan Soomaalina inaynu dhex keenana waxa weeye waa laga qurux baday way haddaynu sii boonboonin oo ka sii cabsano Soomaaliya ku soo baahi doonaan wayna u iman doonaan insha Allah marka waxa weeye dadka saawsi boonbanaha laga daayay aad baan idin salaamaya wana ka baxaad نعيمة علي واقسينا يا سك 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 يا جمال هورتا waxaad tiri insha Allah horta way iman doonaan waa u iman doonaan baa tiri horta Ilaahay noo ka aqbalo subhanallah inaad tiraado insha Allah oo adana ku xijiso tiraado waa idin iman doonaan
subxaan allahi wa nicma alwakiil walaalo I don't know نعيمة صح هذا meel الكلام bay يقول laakiin salaadu ka xidhi لا lahayd لا maxaa jira لا walaalo ما نعيمة صح هذا الكلام يقول ما هي قفل أنا ma هذا hadda maxaa tiri هذا الكلام كهذا وحوي يعني حتى أنا قلد أن كهذا إلهي بيقدم بدافع إلهي بوحوي ما تكنا كما كان قلي لكن هذا الكلام يقول أدقنا هذا إنه يرد إنه عبسيبا إسكلنا إنه مسلم oo waxa way daciif iska dhigno oo ilaahay aaminsan weyno iyaga aamino oo nahna waxa way dad waxa way awoodda inta leg adduunkana maamulo oo waxa way dadka saa u dilaya oo waxa way dadka saa u dhibaateynaya oo dadka sidaa u waalay oo maskaxda ka bedelaya oo waxa way ma taqaanay maskaxdii ilaahay qofka ku abuuray waxa way si kala ka dhigaya oo dhakhtar gelinaya oo waxa way ma taqaanay ku shaqaysanaya inagiiba daciif noqonay way noo imanayaan shaydaanku waxa way qofku markuu daciif noqdo qalbigiisu ayuu ka faa'iideystaa saasaan u dhigay hadalka walaal meesha waxbaa khaldan jamaalo maya walaal eeg uma dhigin way noo imanayaane laakiin daciifnimada iimaanka markuu iimaanku markuu daciifnimo ayuu qofka bini'aadmiga waxa way shaydaanku soo imanayaan istaghfirullah maya waa waliba kelmad qalada ilaahay hadaan yiri waabaan yiri aniga mar horaaban hadalkay ku sheegay ilaahay qaadaana ka dhalo meesha ku maya anu ma oran walaal anu ma oran ilaahayna hayga dib dhaafadaan kelmad qalada ku hadlay laakiin waxaan ku sheegayaa baan ku yiri walaal waxa way hadii aynagu aan daciif iska dhigno oo iimaankeena qaabkan aynoo hadlayno daciifnimada waxa way uu nagu noqdo qof waliba uu inaga faa'iideysanayaa oo waxa way ma taqaanay qof waliba waxa way ma taqaanay uu ku soo dhiiranayo islaamka nacab oo diinteena waxa way dagaal kula jira aan aamusno eeg in adeerkay bay dileen airportkay ku dileen laba calina isma weydiin sida ay u toogteenna buf bay ka siiyeen haddana waxaad leedahay waa jiraan waa sax waa ognahay haddana waxaad leedahay aan laga hadlin haddana hadalka waxaad ku soo gabageysa waa idin imaan doonaan walaal macaan horta bal ilaahay gef noogama dhiga hadalkaaga balorta sug hal midaa kuu sheegaa walaalow horta dee sibaad u defend garaynaysaa sibaad uga soo horjeedaa sibaad rabtaa in daboolka loo saaro soomaali waa lasoo daboolay daboolka waa lasoo saaray waa la qariyey waxan lamana qarin doono waa say u soo baxeen Omar barbar message buu inoo soo gudbiyey message-ku inoo soo gudbiyeyna waa lasii gudbin doonaa walaalo waxaa lagu yiri waxani dadkani shaydaamadani dadkan dadka caabuda sacrifice-ka sameynaya shaydaanka caabudaa kuma ibaanayaan oo daaragta kuma soo gelayaan walaalkaabay kuu soo adeegsanayaan saaxiibkaabay kuu soo adeegsanayaan oo maxay yihiin calaashaan iyagu what are they waxa ay yihiin iyo maxaa la yidhahdaa ujeedadoodu maxay tahay inaynu isweydiino weeyaan ujeedadoodu waxa weeyaan in ay xukumaan adduunka oo ku xukumaan caqligooda oo diintaada kaa soo galaan walaalo waxaa la ogaaday soomaalida dadka kale oo dhan lacag way qaataan oo way ku qaataan lacago markay meeshan galayaan laakiin soomaalidu waxaa la ogaaday inay yihiin dadka keliya secretka laga qaadan karo iyagoo bilaash laga qaadan karo dadka keliya ee la dhibaateyn kara iyagu dhexdooda is dhibaateyn karaan isbasaasi karaan ee bilaash isku basaasi karaan marka walaalo hadalkaaga anigu markan dhegaysta naciimo ahaan wax badan ba iga soo baxay marka inaad horta ilaahay subxaanahu wa tacaala ha inaga ilaaliyo meesha canaan looma joogo iyo in la dhaho soomaaliya saa iyo saa iyo saas waxaa loo joogaa wiilkaas soomaaliyeed messajka uu inoo soo gudbinayo iyo waxa uu ka cabanayo inaynu miisaano oo aynu ogaano oo aynu nidhaahno we have to stop we have to wake up because maanta intaas oo wacyigelin waxaa laga yaabaa annagu dadka kama bajinayno malihiin aan la bajinaya la hoogaya aamusay no we want to inay dadku ogaadaan waxan inay jiraan in familigaaga lagu soo adeegsanayo in adiga gurigaaga laga dhex bilaabayo in waxyaabo sacrifice la sameeyo hadda waxa lagu yiri ninbaa wuxuu dhigayaa xaflad fanaanin buu dhigayaa calashaan concert buu qabanayaa waa loo imaanayaa intaasoo qof baa ku dhimanaysaa lagu yiri xafladiisii waa sacrifice uu shaydaanka ilaahay subxaanahu wa tacaala inaga najeeyay uu u samaynayo hal dadan baa lagu sheegayo walaalo aadaa noo sheegoo la yiri xataa waxaa ku jiro dadkan maxaa la yidhaahdaa cayaartooyda badan baa ku jirto in adeerka allah ayaa raxma waali toogtay baa lagu yiri way dilaan baa la yidhi maxaad u diidaysaa inay soomaalidu ogaato waxan inay jiraan oo ay indhaha kala qaadaan
oo ay ilaahay subxaanahu watacaala isku xidhaan oo walaalkood markay arkaan in la sii wato ay isku duubnaadaan ay yac ka dhahaan oo if iyo aakhiradoodaba ay ilaaliyaan looma diidayo we have to wake up okay kaaga jawaabo walaal marka walaal ma waa hadashay isugu ilaa khara ku siiya wasi wadan doontaa dhowtee inan kale waxaan siinaynaa Ethiopia gang kadib kelmad hor dhigtaa kaaga jawaabo warka kaaga baxaya waan u dhiibi karaa markaa ma ku soco walaalo laakiin hadalada istabtab raay ila dad ba ina dhageysanayee okay walaal dhageyso waa inad walaalo maxaa sometimes markan ku eeg waxa isdhaay wiilka ma kuwii baa soo diray oo miyuu kamid yahay okay walaal dhageyso ilaahay kaama kumana ku rabayna ku soco okay walaal horta waa qalad inaad qof ilaad biya adigu gaftaano muslima oo la ilaaha illa maxamed rasuulullah leh qolooyinkana kuma bajiro halkana kama hadleen baa ku jiro horta dhageyso horta halkan kuma bajireen ba waxa way kamana hadleen baa hadaan qolooyinka ku jiro cadowba idila noqon lahayo wabad leeyl lahada marka waxa way kuma jiro qolooyinka marnaba weligeena xataa meel lagaga hadla ama waxa way mataqaanay meel ay ku hadlaan waba garnay walaal laakiin hadalkayga inaad fahantaan oo qurux badan hadda hadalkaaga ugu dambeeyay waxa ku jira in adduunka maamulaan waana kelmadaan ka digayay oo aan ku lahaa iyagu ma maamulaan ilaahay oo qura ayaa maamula adduunkana ilaahay oo qura gacantiisa ku haya iyagana ilaahay baa abuuray horta dhageyso walaal ma iga soo dhaxgali waa ku dhageystay marka waxa weeye kelmadda laftigeega aad ku celisay ayaa ban diidanayo waxa way ka soo horjeeday haddana iyaga u shaqeeyay ama iyaga ku jiro taasaban waxa way mataqaanayaan diideenba marka horta ilaahay uun baa adduunkan maamula waa talabaad waxa way Soomaalida aan uga digaynaa ama waxa u diidanahay inuu barnaamijkan ku soo biiro dad waxa jira waxa way laga faa'iideysan karo aqli gaaban oo waxa way dadku inta badan waxay leeyihiin lacag badan bay bixiyaan taanjir bay ka dhigayaan magac bay ku sameeyaan Soomaalida wada aragtay waxa way qof ba hooyadii ama walaashii ku dilaya waxa way mataqaanay lacag yar aan wax way micna lahayn qaraxyay Soomaalidu isku dhameysay oo micna lahayn oo lacag qaata lagu leeyahay marka waxaanu diidanahay in barnaamijkan uu Soomaali soo dhex galo oo hunguri loo geliyo oo la yiraahdo lacag inta la bay bixiyaan oo malaayiin bay bixiyaan oo magac bay ku sameeyaan oo waxa way mataqaanay adduunka kor ku qaadaya taasa waxa way dambi ah waa talabaad in cabsi la geliyo oo waxa way shaydaankii la boonbooniyo oo inuu adduunka waxa way mataqaanay shaydaan maamuli karo oo shaydaanku awood leeyahayna inuu awood waxa way mataqaanay ka dhigno aanu lahayn shaydaankuna taasaan uga digaynaa marka lagu leeyahay qofku dilayaan waxa way shaydaan baa sidana iyo shaydaan baa waxa way mataqaanay sidaa sameyn kara taas uun baan diidanahay walaal hadalkayga inaad fahantaan baa qurux badan umaan dhigin in waxa way mataqaanay waxani ay waxa way mataqaanay jira waa jira oo waan ku sheegay oo wala isku walaalo intii baad ku soo leedahay hala daboolo sheekadan yaanay soo shaac bixin warheede maya sida loo dhigayo walaal ayaa qalad walaalo jamaalow horta marka hore research soo samee research markaad soo samaysad soo eegto waxa ii kaalay walaalo waxa lagu yiri wiilka Omar hadda maxaad is oran kartaa dadkana way ku soo ataageen adigu waxa leedahay cidma soo ataagin oo ninku waa waashay baad ka wadaa sheekadan adigu saas bad leedahay laakiin waxa ay ku soo ataagi karaan wiilkan ma noo sheegi kartaa bal hadayba ku soo ataageenba waxa tiri lacag male haye ninku waa isku dhaxyaacay saas baad ka wadaa nicima walaal ma isfahnaa ma damay maxay ku soo ataagi karaan Omar maya eeg sixirku soo wax jira soo maaha nabigu muxuu ku yiri mata rumeeya oo sixirku wax jira oo run u qaatay ku yiri uu jira laakiin rumeyn baa lagu yiri soo sax ma taasoo ma jira laakiin ka hadlaynaa leenahay waxa way waxana uu jira laakiin la rumeyn oo laga dhigay wax way wax dunida maamulo oo wax way awood leh taynu ka hadlaynaa waa taa in Soomaalida dhexdooda loo boonbooniyo bal in Soomaalida loo boonbooniyo la yiraahdo waa niman khataro oo waxa way adduunka maamulo wax dila taasina diidan walaalo jamaalo magaca nabiga sheegaysid ku salli nabiga sallallahu alayhi wasallam Allahumma salli wa sallam alayhi wasallam نعيمة يا محمد وارجماله بل محمد صلي صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اوكي نعيمة قاري وكسيني يسوق عمر وصودو وحبرير معه صودو السلام عليكم عمر صودو هل مدان هدوا كو شيغيا هل مدان كو شيغيا جمالو يا دمان دكينا دغيسنيو
qof waliba meesha aad doonto u sheergaree meesha aad doontona wax la soco laakiin hal mid waa ina ogaataa duulaan weyn baa lagugu hayaa diintaada duulaan weyn lagu hayaa quruxdaada qofka markay arkaan hadda Omar oo kale caqliga ka shaqaysiya Omar waa wiil qurux badan waa wiil ilaahay cod wanaagsan siiyey waa wiil ma aragtay stage-kii sidii loogu shaqaysanayay stage-kii ugu dambeeyay sacrifice-ka ee la yiri dad soo dili kari waayay oo la ilaahayow meesha iga saar wuxuu ku yiri cid i badbaadin karta Allah subhanahu wa ta'ala mooyaane ma jiro nin waalana ma ahane reality-gii buu ku sheegayaa runtii buu ku sheegayaa wuxuu leeyahay Soomaali ay waan la ina waalay Soomaali ay waa la ina haystaa Soomaali ay waa la ina soo galay meesha ka kacab ku leeyahay i badbaadiyo ilaahayna waa ina badbaadinayaa ilaahay ii soo bariyo oo Soomaali ay caawiya marka walaal ina tiraado waxa dhanba hal daboolo yaan laga aamusin de walaal taas khalad waay laakiin bal waxaan siinayaa inan kan Gamaal ugu qoran yahay sheekheeni sheekh Umarna abr assalaamu alaykum soo dhawow sheekh ana soo qabtay soo dhamaantii waa salaamu calaykum horta marka hore dhamaantii wa calaykum assalaam wa rahmatullahi wa barakaatuh hal midna Jamaal khalad u fahmayna dhageysta walaalayaalow anagu idin maanaan dhihin dadkan diinlaawayaasha ee kugu yiri waxaan ku nahay duulaan oo rabnaa inaanu diinta aan lagu xukumin wax ay caqligeega aan ku xukuno that's why banu dadka u soo kaxaysanaynaa oo dadka xiro ugu oodanaynaa dadkaas ogow idinkabay duulaan idinku yihiin idinkabay rabaan inay idin khalkhaliyaan so sida idinku uga dirigaroobi lahaydeen iyo inaad istifaacdaan waa sax oo dadka u sheegtiin oo tidaahdeen saaxiibka baa lagu soo dirayaa kan baa lagu soo diray you have to be careful guys don't haysdhiin kan waa saaxiibkayo kan ma aha no everybody way ka haystaan Soomaalida bilaash bay xataa ku haystaan yani ma inaad dadka ka joojino especially dhalinyarada imka doonaysa inay soo caan baxdo taanu ku dar absolutely marka walaal Gamaal oo ku socda badna sheekha siiya khadra iyo beauty walaal ku socda ما يورا له كل أنا ويدين سوكو بيارت مالنتي معلومة نسمع اللي مالو لا جديد كشوفتان كل أنا وحنا بان ربا إن وجه الله أسحق هان وحي أنت بدن أن أما أن مقلي أو كيس كان أو ماري مكا مدة مكا شام بلاد كهر أيام وحنا كم مقلي أبوان سومالية دو أبوان ندا وين ما أنت وحرية مركو قصدي سلوا ده جبان ورت عن هلاي abwaanku markuu erayada qoray uu leeyahay waxa erayada ku jira in la yiri hooyadii Xalimo Omar sacrifice u sameeyay ma garad marka 5 bilood ka hor baaba heedo markuu Omar lahaa waliba muddadan oo arintan galayna muddada ka horeysay heedo kulli wal ogyeeno inuu de groupkan John Gray waliba groupkuna ma aha uu kulli sida magacyadan la sheegayo horta ma cadeyn karna laakiin dadka Soomaalida ee xogtan aadka ugu faradhuuban ee reer Mareykan waxay ku sheegeen waxay ku leeyeen Omar ninka waxaan ku sameeyay waxa weeye waa nin konsertiyada Mareykanka sameeya oo arintan ku sameeyay oo dhalinyaro oo badan oo Soomaaliyeed ku sameeyay marka arinta Omar waa arin jirta had iyo jeer aalada waxaan wax jiro horta inaan diidamka arintii leela beauty aan aad u dhigeysanay waxaan sheegayso dhan waa wax jira Freemasonka ayu nooc waa la injoon gareeya aniga ma wadankan aan deganahay qofka imaka aan wadankan aan deganahay waxa jira dad ku jira baa jira waa wax caadi waa wax la galo dadka jinka wali xilliga rasuulkana way jiri jirto mar walba dadkan jinka caabda waligood way jiri jireen ma garad oo nabiga dhan baa loo soo diray diinta inkirmayno marka laakiin nabigeena ku salli imaka magaciisa sheegayso ku salli nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam sallallahu alayhi wasallam marka way jiraan waxyaalo badan inuu ma istiidsiinayno laakiin inanka maanta caqabad baa haysata caqabadaana uu inala wadaago waliba 5 bilood ka hor markuu ku leeyahay hooyadii baa la yiri dil uu erayada dhiibayo uu leeyahay dadka Soomaalida waliba imaka waliba hadda baan ka dhigaysanay macal gabayga codka la duubay 5 bilood ka hor baa marka Omar qisadiisu muddo badan bay soo socotay kelina ma aha imaka inama kala Soomaaliya kawaanka saaran soo imaka waxa laga yaabaa inuu de markii la yiri hooyada Xalimo dilo kale ama arintii stage-yada ugu dambeysay uu marayay inuu ka bixi kari waayay laakiin inama kala ku jira oo Soomaaliyeed oo stage ka saaran
arrintana waxa sameynaya oo waliba dadka inta ugu badan ay ku celcelinayaan anoo qolyaha waxaan hay moogtay space-ka jooga ama Twitter-ka inta ugu badan dadka xagga degan waxay aaminsan yihiin ama platform-ka ka wada hadla inta ugu badan xogta ugu badan waxay gelinayaan nin Soomaaliyada u sameeyo oo Mareykan oo madowga oo Soomaaliyada concert u sameeyo oo waliba Soomaalida inta fanaaniinta oo dhan dib badan u geystay kaliina maaha oo maaru kaliima dad kale u geystay dad kale badan buu u geysto ka cabanaya marka arrintu way jirtaa waana la isku haysan karaa de black magic waa la isku sameeyaa fanaaniin badan baa lagu sameeyaa dad badan caana lagu sameeyaa goos baa u dambeeyo Francisco kale ninkii isagana Francisco ahayd Faransa joogay isaga laftiisa noocaas oo kale loo galay marka waxaynu dafiri karna maaha laakiin maanta waxa taalo war inankan qisadiisu inoo la wadaag oo ilaa gabayba inoogu sheego oo ilaa heesba inoogu sheego muddo 4 bilood ka hor waxa la 7 bilood ka hor war dadka maadeysan markuu inuu leeyahay heestu maxaa qisada u socotay waxyaalo badan waa inay wax fahantaan marka finalkii markii ugu dambeeyay waa ina la hadlo innaga marka waxaan la gudboon war kuwa ku jira maanta dhibta kale ay haysatana sidii loo badbaadin lahaa isagana sidii loo badbaadin lahaa laakiin inaanu niraahno kooxahaas ma jiraan iyo aqliyada Soomaalida gaaban baa waxa lagu khuraafaad jira waa waxyaalaha way jiraan inaad war la galaa aniga triangle-ku waaba agency-yadan loo shaqeeyo wadankayga waaba loo shaqeeyo macal shaqooyin bay bixiyaan oo sida ma garanaysa iska dhaaf alminaad ku jiraan freemasonka 25 euro bishii laga qaaday hadda u doonaysa in John Grace qofka waliba income-kaaga soo qiimeynayaan marka dee balanta lagu sameeyo income-kaaga la soo eegayaa mar walba wax uu ka dhaqaaqay income-kaaga ka ugu yeeshay laata baa lagu galaa waa wax jira ma diidayno waxyaalo badan oo way ka jiraan adduunyada Yurub oo dhan oo ka jira adduunyada oo dhan oo ka jira laakiin innagu maadaama dad muslimiin nahay waxyaalaha inaan aamino aynu dhahno diin ahaan ama qofku raaco diinteena inoo diiday laakiin waa wax jira rasuulo dhan baa loo soo diray nabiyo dhan baa loo soo diray oo kooxo jiro quruumo jira ahayn dadkan sacrifice kuna dhaqanka Soomaaliya ma qajaan ambiyada iyo rasulka calayhi salaam leh please alayhi salatu wasalaam Soomaalida ma qajaan imaka Soomaaliya oo kala sacrifice Soomaalida ma qajaan hebel wan ha loo qoro aw ha loo qoro waxa ka dhaxqaliye cadar ha loo keeno waxyaalaha ha la keeno beerka noocaha halka loo dhigo waxa soo jiray ma wax cusub halka mid kale meeynaan dad caadi oo nool sida qurumaha bilaad ku nool aan ahayn waa wax jiray imaka lafteeda way jirtaa dad inta ay ka dhaxqaliyaan ama ay laakiin inaga wali waxaanay gaadhin heerkan ah in lagu haysanayo oo lagu oranayo garanaysa nolosha dhan baan la wareegin ما marka wax badan wala fahma inaan kana kiiskiisa ka dhigana naciimay inuu inanku waaleeyahay arrintaas uu galay arrinta markuu galayna waliba dad baa galiyay isagoo aqoon u lahayn hadda ka horna sanad ka hor uu lahaa markuu waliba dadka Omar la Francisca sanad ka hor wareysiyadu bixinay ama waxyaalo badan oo laga qaaday ama isagoo leef ku jiro uu sheegay markuu galay macal sanad ka hor baa dad badan baa xukuumadda ku soo qoray Umar wada khaldan baa haysaa anuu habeenka wallahi dadkii jooga baa kamid ah Umar wada khaldan baa haysaa ka joog qaar baa soo laha oo dad Soomaali dad baa wax fahansan oo mar walba waxay garan karaan waxa khaldan ama waxa inuu qofku markuu limitkiisa ama meel aan loogu talgalay ama maqaamkiisa ahayn ama wada khaldan ku socdo de waynu fahmi karnaa walaal ma garat marka ilaahay maanta ilaahayna ka caafiyo inanka sidii lagu la tacaala xaaladiisa in la garab galo midda kale Soomaalida kale og ninka Mareykanka waxa ku sameynay og qaranaya wadanka uu la degan yahay dhibta uu ku hayo koow aan ahayn laba aan ahayn saddex aan ahayn uu ku sameeyay sabab u qarsan ma taala dawlad walaalo kaasoo kaliya maaha war TikTok ay inala joogaan afkaasay ka joogaan waa dad fara badan oo Soomaali ah oo waxaan ku urshada diin ah oo shaydaamin ah oo subxaanallahi kula sheeganayo Soomaali oo kula xataa muslim baanahay qaarkood way jiraan walaalo marka waad mahadsan tahay Jamaal jazakallahu khayr هي الشيخ انت لو ديبين هل دقيقه يسيا وندقيا ولا هل دقيقه يسيا عرب بقى جوابيه وندقيا شيخ جمال دقينا عرارني
meeshaada fadhiyo yay hadaladana ku gubinoo yay ina kala gubine dad soomaaliyeed beenee ii fadhi inaad halkaaga fadhi sheekh cumar soo wiilkan dhawow mayga xaggaaga weeyaan welimadeenaynu siinaynaa wiilkan shiikha cumar oo dadka runtii intaasoo dhan la dagaalamo oo iyagu ay caan ku yihiin oo youtube-kiisa aad soo arki kartid oo anigu kole aan ku xidhanahay si gaar ahaana bal isagana dhegeysta waxa uu ka dhahayo arrinka Omar iyo waxa uu ka dhahayo dadkan qandaraaska inagu soo qaatay diinteena ku soo qaatay ku soco habreer assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ku socda anigana waan soo yara laabanay waxbaan yara wadaay ku socda haye ana rajooga soo dhawow calaykum assalaam waraxmatullahi tacaala wabarakaatu الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان ولا الله مسلمين تا وسلام يا وفول بن وحكو سلام يا مقام كيسي درجة ديس وحكو سلام يا نهبو محسن تهي أذي دمان ولا الله مسلمين تمشي جوغان هورت مركة كواد أدينو نهي مسلمين نبينا صوبان صلى الله عليه وسلم أيو عبد الله بن عباس مر أو سلا صارنا ين مالتي قاديد أسوقو ير بوحو كير يا غلام إني أعلمك كلمات وحكو برايا بويري كلمات باكو برايا أو ينفعك الله بهن كو أنفعا كلمات كاسي مركاسا نبينا صوبان صلى الله عليه وسلم كيري ابن عباس احفظ الله يحفظك احفظ الله يحفظك معناها هو إلهي حداد كعبستد وأوامرتي سياد راعدد نواهيدي سيوحو كارا يبنى عد كعشتون تد إلهي وكحفدنا إياه haddaa ku taagan tahay taacaadkii qurbaadkii aad ka fogaanaysid macaasida iyo dunuubta iyo aathaamta ilaahay wuu ku xifdinayaa احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك haddaad maratay aad ku tagnaatid maratay awaamirtii ilaahay subxaanahu wa tacaala nawaahidiisa aad ka fogaatid mar walba waxaad arkaysaa ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu garab kugu siinaayo wuxuu ku yiri احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك وإذا سألت فاسأل الله نعم haddaad wax weydiisanaysidna oo u baahan tahay gargaar oo u baahan tahay في وقت متقانا الشدة هذا عد wax weydiisanaysid waxa weydiisata Allah subhanahu wa ta'ala ha u yeerinin maxaa la yiraahdaa awliya Allah iyo maxaa la yiraahdaa iyo sanam iyo غيرك إلهي سبحانه وتعالى ha u yeerinin waxa u yeerinaysaa yaa waay Allah subhanahu wa ta'ala إلهي baa gacmaha ay kor u taaganaysaa إلهي baa u yeerinaysaa إلهي غيرkiisa uma yeerinaysid إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله نعم إذا استعنت فاستعن بالله إياك نعبد وإياك نستعين وين مالك استمر صلاة أن تكنين الفاتحة مركا آخرنا نوحواي وحلينا إياك نعبد وإياك نستعين أي كلي جاي أن قرقار كوي دي سنينا أريجا مرتي عاونات أن كوي دي سنة الله كلي يسويا عد كلا مرتي لموي دي سنايا أن وإذا استعنت فاستعن بالله طيب نبي صلى الله عليه وسلم وحو نوشاقي أن لو اجتمعت الأمة حديثك كجرى لو اجتمعت الأمة على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك هذي أمدي دن اسكت تغان إربان إني وحكو أنفعان أم وح إني كو غارغاران معني ما سمين كران إلا شيء إلهي سبحانه وتعالى كو قرمويه طيب ولو اجتمعت الأمة ummadda hadday isku kulmaan ay isku imaadaan dhammaantoodii an yaduruuka bishayin in ay wax kugu dhibaateeyaan ama dhibaato inay kugu sameeyaan ma awoodaan ilaa shay oo ilaahay subxaanahu wa tacaala maaragtay kuu qoray mooye ayib intaas qofka muslimkaa waa inuu ictiqaado weeyaan waa inuu rumeeyo weeyaan waa inuu yaqiinsado weeyaan arrintaasi maskaxdiisna waa inay ku jirto weeyaan midda xigta kolley
walaalkan Cumar ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaa ka baryaynaa in uu ka qaado dhibka iyo dhibaatada haysato isaga keligiisii ayaa awoodo bini aadan wax ma awoodo wuxuu Allah subxaanahu wa tacaala u qoray oo ogolaaday oo saamaxay mooye cid wax ay samayn karto ma jirto ilaahay subxaanahu wa tacaala dhibaatadan iyo dhibkan ha ka qaado Cumar sida hadaladiis maartay ay ka muuqdaan ma aha qof oo macnaha stress maartay ku dhacay from nothing qof oo mataqaana waali oo iska waashay haakada maartay cabatan ma aha arrintan waa arrin maartay xiriir la leh qolyaha maartay mas'uuliyada weeyaan waana hadaladiisa maartay ay ku cad yihiin yani hadallada asagoo ku hadlay oo ku dhawaaqay macnaha wax oo shay oo banaanka ka imaaday haakada maartay oo sudfa ku imaaday ama shay lama filaan maartay ku imaaday ma aha waa wuxuu sheegay waa wax maartay jiraan weeyaan laakiin dad baa qaar waxay u qaateen waxay dhaheen maya waa nin mataqaana drooga iyo waxyaabahaas maartay isticmaalay kadibna maartay wuu ku dhuftay maya warkaasi war saxsan ma hadii oo ma ogi hadii indhaha maartay carl isku shubaayo waa gooni weeyaan laakiin wuxuu sheegay waa wax jiraan weeyaan wuxuu ka hadlay triangle waa macruuf weyn mas'uuliyada weeyaan nuurka iyo iftiinka xagee waa dhankaasi weeyaan طيب arinta oo sheegay waa arin maartay ay jirto weeyaan xataa dadka asaga oo magacaabay waxa kamid ah DJ Zubairna de wuu ka mid yahay maartay qolyahaas wuu ka mid yahay hadda waxa la helay sawir oo 2023 ma aqaan hadda ii ogolaanaysin hal mar waxaad sin lahaa maartay dadkii aad sin lahaa sawirkan bal fiiri calaamadan waa maxay calaamadooda weeyaan calaamada mas'uuliyada weeyaan waa goormo way 2013 weeyaan waana beedkii martay DJ Zubair weeyaan Cumarna martay wuu magacaabay wuuna sheegay magaciisa uu sheegay dadkana way yaqaaneen martay ninkan inuu meeshaas martay uu ku jiray marka dadkaasi waa dad jira weeyaan mas'uuliyadaasi وطبعا إيك نفتر كودا أي أحزاب أيهن فملي أيهن فملا قار مرتي أو مسؤولية أي كجيران وقاليا أو محلي هذا أي هاس إيمانا لويس فر وكبير الأبالي سويا أبالي سدا كمدك أوين لويس فر ويا صليب كودنا أو إيك مرتي أي هستان وحواي وتريانجل كاسي ويا هيكل كودنا طبعا وحواي وماشي متقانا لوجها سويا مسرح متقانا لوجها سو وهيكل كود ويا dadkana martay waxay ku dhahaan oo sida martay Albert martay bike mid oo jaraal ah hadal oo soo jeediya jiro oo markuu la hadlay المجالس العليا أي وحكير يجب أن نقول للجماهير وإن مرتي أن أشاقنا ضدك شعبك أننا نؤمن بالله إن إله رمي صنهي ونعبده أن عابد صنهي ولكن الإله الذي نعبده إله أنا أن عابدينه لا تفصلنا عنه الأوهام والخرافات خرافات أوهام مرتي نجمة يعني محلي هذا نجمة لا يفصلنا يعني نجمة نفصلنا في صومالي يسوق قبتها يعني نجمة حجنا يميع أو كلا بمعنى هكذا مرتي معنى أصوص أساس وكلا مرتي وإيمان كرتاب ونحن الذين وصلنا إلى مراتب الاطلاع العليا يجب أن نحتفظ بنقاء العقيدة الشيطانية عقيدة داسي وعقيدة مرتي أو شيطانية وين وأنا ليقان وشيء معروف أهويا صومالنا مرتي كجران أنا شخصيا قفوحا إلسو حريري walaal oo Soomaaliyeed ba ila soo xiriiray qolba ku jirnay oo TikTok ah wuxuu noo soo qoray wuxuu yiri waxaan rabaa inaad soo islaamaan rabaa uu yiri markaas aan dhahnay soo korday maay ka soo qabso shahaadada ku qabanayna markaas uu naga diiday wuxuu yiri ma awoodi
codkayga ma rabay in la imaqlo waa cabsanayaa markaasa si khaas ahaan maaragtay aan usoo qabtay whatsappka shahaadadii aan u qabanay markuu ashhaadti ka bacdi ayaa waxaa dhahay xaggee ku jirtay maxaa ahayd macnaha inaa gaalowday waa bacaddae islaamkii waa kusoo noqotay alxamdulilah rabbilcaalamiin ilaahay ku badbaadiyey soo dhawow dhahay maxaa waaye ii sheega dhahay marka wuxuu ii sheegay walaalkaasi in uu qolyahan ka mid ahaa eliminatiga inuu ka mid ahaa يعني waxaa aad uga yaabay walaalkaasi wuxuu joogay Soomaaliya fiiri Yurub iyo meelaha maaragtay iska dhaafo daakhil Soomaaliya laga hadlooyaa fiiri Soomaaliya asagoo jooga ay qolyahan maaragtay ka mid ahaa wuxuu weli ii soo diray ID-giisu ii soo diray ID-sien sawirkiisa ku dhagan magaciisa ku dhagan waa qolyahan weyn wuxuu dhahay qolyahana u shaqeynay weli waxay gaarsiiyeen meel oo heer ilaa maaragtay rasuul bay ka dhigeen wuxuu dhahay rasuul baa ahaa rasuul yaa ahayd Soomaalida rasuul waxa meeshaas u joogay Soomaalida waxa u soo jiiday maaragtay inay noqdaan qolyaha inay ka mid noqdaan marka waxa weydiiyay qaabku ku galay macna weyga asaga ku galay ayaa weydiiyay wuxuu dhahay Soomaali way joogan qolyahan maaragtay Soomaali gudaheedii way joogan waxayna ku joogan khaasatan kuwa aan Soomaali ahayn oo cadaanka ah iyo ajaanibta ah wuxuu dhahay waxay ku joogan shaqooyin oo caadi ah meesha ka qabtaan sida takhaatiir iyo shaqooyin kale maaragtay company ay u shaqeynayaan waa caadi dad caadi weeyaan shaqo kalena meesha way ka qabtaan waxa waa shaqadan oo eliminatiga maaragtay dadka maaragtay ugu yeeraya weeyaan wuxuu dhahay marka dhakhtar baa maaragtay u tagay oo caafimaad ahaan u tagay kadib xaalkeygii buu weydiiyey buu yiri uu i wareystay marka u sheegay inaan macnaha duruuf maaragtay haysato oo lacag haysanin oo yani aan rafaadsanahay markaasuu ii soo bandhigay wuxuu dhahay kaar buu isoo wacna maaragtay ku habeenaya oo kalo marka la xiriiray markaas maaragtay waxa waaye waa i balleemiyeen markay i balleemeen maaragtay baawur baa ii imaaday baawur markuu ii imaadayna indhiha laga xiray mana aqaani maaragtay meesha xaruntoodii ay tahay markaas maaragtay meel i geysteen markay i geysteen maaragtay indhihii wixii laga furay processkii ay marsiyeen marka sidaas ku qaatay waana kadib marka muddo aan ku jiray wiri aan qolyaha maaragtay ka mid ahaa kadib markay arkeen maaragtay inaan daacad ahay xil bay ii dhibeen oo inaan noqdo maaragtay rasuul baa ahaa kadibna waxaa jiraan dad aan dhumiyey oo dadka mataqaana soo geliyay bimacnaa maaragtay kooxdan marka yarkaas markuu soo islaamay ka bacdi dhowr maalmood maaragtay ila soo xiriirayay wuxuu dhahay waa cabsanaya buu u yiri marka waxa ku yiri haddaniyo aa cabsanaysid qolyahan ka cabsanaysid dad ajaanib iyo waxa la weeyane orodniyo maaragtay booliiska u tagaa dhahay la hadal dacwey dadkaasi hala soo xirxiro nin wuxuu yiri booliiska naftirkiisii in ay ku jiraan maaragtay waa suurtagal buu igu yiri laana kooxdan waa koox maaragtay aad u ballaaran weeyaan xoogna way leeyihiin uu yiri dowladana way ku jiraan uu yiri laakiin aday ma garan kartid uu yiri markaad tagtid waxa waaye already waxa waaye warkaaga waa la gudbinaya waxa leeyahay ninkii anigu noo imaado la socda waa la imaanaya waa lagu khaarijinaya uu yiri waa lagu dilaya kadib wuxuu go'aansaday wuxuu iga yiri maaragtay inuu wadanka ka baxaayo oo meel kale maaragtay aadayo xaalkiisa sidaas ku ogaa hadda laakiin maba ogi inuu nool yahay in kale allahu aclam yarkaasi anaa maaragtay shakhsiyan maaragtay la hadlay marka qolyahan waa qolyo jiraan weeyaan Yurub iska dhaafay daakhil Soomaal weeyaan maaragtay ayay joogaan waana waxay ku dhex faafinayaan waa maxay caqiidada maaragtay shaytaaniyada ah ee shaydaanka maaragtay la caabudayo weeyaan marka war jiro weeyaan in la inkiro oo mataqaana oo la iskanda saaba ma aha waa xaqiiqo maaragtay ay jirto oo u baahan mataqaana in la waajaho ciddii oo lagu arko calaamadahaas iyo waxa weeyaan in haddii maaragtay oo waana maaragtay ku qaadanaya inuu diinta islaamka ku soo laabto waxyaabahan iska dhaafo cid ay dhibaatayn kartana ma jirta Allah subhanahu wa ta'ala ayaa dadka xifdiyo asaga maaragtay ilaaliyo dhibaatana maaragtay ku soo gaarayso ilaa wixii Ilaahay subhanahu wa ta'ala ku qoray mooyee marka walaalkan Umar wuxuu u baahan yahay duco u baahan yahay wuxuu u baahan yahay garab buu u baahan yahay in loo duceeyo oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala maaragtay ka soo bixiyo dhibka iyo dhibaatada ay haysato hadda dhibka ku dhacayna sida muuqato
waxa waaye wuxuu tilmaamay oo sheegay black magic السحر الأسود السحر الأسود waa shay jiro weeyaan waana muuqataa maaragtay in sixir loo isticmaalay awood loo isticmaalay oo jinniyaal iyo waxyaabahaas mataqaanaa oo waxyaabaha asaga ka soo baxayan oo ku hadlayana maaragtay waa waxyaabo maaragtay ay jiraan weeyaan oo dhib asaga maaragtay la kulmay weeyaan oo la dhibaateeyey marka ilaahay subxaanahu watacaala garabkiisa ha galo intaasaa maaragtay kusoo khatimaya waana mahadsantihiin jazaakum allah khayr baaraka allah fiikum